waxaana wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad dunida dacalada ka joogtaan halkan aad naga daawanaysaan waa rugta TV oo aad nagala socotaan mar kasta iyo meel kasta iyo goor kastaba waa mar kale iyo barnaamijyadeena fanka iyo sugaanta fanaanka caanka ah ee Khadar Keyow ayaa lagu xiray gudaha Itoobiya gaar ahaan caasimadda dalka Itoobiya ee Addis Ababa warar xogaal aanu helino ayaa noo xaqiijiyay in fanaanka sababaha loo xiray ay yihiin fanaanka oo ku soo dhoofay waraaqo been abuura sidoo kale loo haysta baasaboor been abuura uu doonayo inuu ugu dhoofo dalalka Yurub gaar ahaan waddanka Canada fanaanka ayaa loo xaqiijiyay in uu hadda ku xidhan yahay xabsiga weyn ee Addis Ababa ee halkaasi ku yaala waxay noo xaqiijiyay fanaanka caanka ah Cabdilaanto oo ah fanaan Soomaaliyeed ka soo jeeda deegaanada dowlad deegaanka Itoobiya ee Itoobiya gumaysato fanaanka caanka ah ee Khadar Keyow ayaa maalmihii ugu dambeysay waxa uu ku sugnaa caasimadda Jamhuuriyadda Somaliland ee Hargeysa halkaasi oo dhawaanahan uu ku sugnaa oo halkaasi joogay hase ahaatee warar xogaal aan helino ayaa waxay sheegayaan in fanaanka la soo basaasay waraaqaha been abuurtana uu ka soo sameystay Nairobi halkaasi oo uu Itoobiya ku galay si kastaba ha ahaatee fanaanka ayaa hadda waxa uu gacanta ugu jiraa ciidamada nabadgelyada ciidamada immigration-ka Itoobiya kuwaas oo hadda baadhitoon culus ku wada fanaanka ayaa xaaladiisu noqonaysaa mid aan la mahadin doonin haddii ay xaaladdu sii xumaatana ciidamada Itoobiyaanku waxay ku sii hayn doonaan xabsiga taas oo aan haba yaraatee la filayn inay sii daayaan maadaama ciidamada Itoobiya haddii ay kuga helaan waxyaabo khaldani aanay fasixi karin dadka si dhib yar waayo ciidamada Soomaalida iyo ciidamada Itoobiyaanku waxay kala yihiin laba ciidamada Soomaalidu haddii ay khalad kugu helaan khaladkana ay ku fasixi karaan laakiin ciidamada Itoobiya haba yaraatee dadku ma fasaxaan oo waxay ku hayaan jeelasha fanaanka caanka ah ee Khadar Keyow ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa uu ku taamiyay in dalka dibadiisa uu tago halkaas uu heeso ka soo qaado waxaase la sheegayaa in fanaanku uu doonayay in dalka Canada uu tago halkaasi oo uu gabi ahaanba qabsaday showyo kala duwan oo sanadka cusub hase ahaatee fanaanka ayaa waxaa la kulantay qabtaasi oo noqotay in fanaanka gudaha Addis Ababa lagu xidho waraaqiisana ay ka shakiyaan ciidamada ammaanka ee dowladda Itoobiya halkaasi oo markii ugu dambeysana fanaanka laga qaado waraaqihii uu sitay iyo dhammaan dukumeentiyadii been abuurka ah ee uu ku dhoofayay fanaanka ayaa ilaa hadda aan la garanayn xaaladiisa meesha ay ku dambeyn doonto iyo waxyaabaha ay noqon doonto wararka hoose aan helino ayaa waxay sheegayaan in fanaanka laga yaabo in muddo 2 toddobaad ama 3 toddobaad ay haystaan ciidamada ammaanka Itoobiya kuwaas oo baaritoon xoog leh ku sameyn doono waxay ku soo aadaysaa xarigiisa dhawaan markii ay ciidamada dowladda deegaanka Itoobiya ay qabteen gaari waxyaalaha qarxasita oo halkaasi doonaya inuu ku qarxo ciidamada dowladda deegaanka Itoobiya ayaa ku qabtay gaarigaasi halkaas oo ay ka buuxeen waxyaabaha qarxa oo ciidanku ilaa hadda baarayaan iyo siyaabihii loo soo galiyay hase ahaatee fanaanka ayaa looga shakiyay in waraaqahan iyo dukumeentiyada been abuurka uu ku khalkhalgelinayo ammaanka gudaha Itoobiya taas oo ilaa hadda ay u muuqato mid halisteeda leh waayo Itoobiya marnaba ma cafiso qofka khalkhalka iyo been abuurka ku wada dalkeeda ama gudaha u soo gala hase ahaatee fanaankana ma aha fanaan dhalasho ahaan haysta Itoobiya waayo muwaadiniinta Itoobiyaanku way ka sii xaq jiraan in qofka shakhsiga ah ee dibadda ka imaanayo maadaama uu fanaankani yahay muwaadin Soomaaliyeed hase ahaatee aan dhalasho ahaan haysan Itoobiya waxa uu la kulmi doonaa xaalada kala duwan oo isugu jira xarig iyo jirdil taas oo hadda ku socoto baaritaano culus oo ay ku wadaan ciidamada ammaanka dowladda deegaanka ciidamada ammaanka dowladda Itoobiya gaar ahaan kuwa Addis Ababa halkaasi oo laanta immigration-ku ay haysato fanaanka waxaan u duceynaynaa fanaanka oo aan leenahay Ilaahay ka soo furto waxaan dadka Soomaaliyeed ee ku sugan gudaha Addis Ababa iyo gudaha Itoobiya dowladda deegaanka uga codsanaynaa in gabi ahaanba loo kuurgalo lana dhexgalo hawshaas sidii fanaanka laga soo doon lahaa oo xarigiisa uu ka badbaadi lahaa ciidamada ammaankana looga soo furan lahaa waad ku mahadsantihiin daawadayaal meel kastoo aad dunida dacalada ka joogto waxaan leenahay muuqaalkan share gareeya like tana siiya oo comment wanaagsan ka soo bixiyo asxaabtiina la wadaaga waanaad ku mahadsantihiin daawashada channelkeena mar kasta iyo goor kasta aad ku sugan tihiin